أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلاة وسلاما دائمين على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، meel kastood ku sugan tihiin waan ini salaamay. waxaan inagu salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan jeclahay walaalayaal, waxaa mar dhoweyd Hargeysa war iga soo gaadhay amba laigala soo hadlay in la xidhay saxafi amba samafale cabdulmalik muuse coldoon lagu xidhay, burco laga qaaday, kadibna loo qaaday magaalada Hargeysa si loo xidho. kelmadaas baa la ii sheegay, isaga faamiligiisana way iga soo gaadhay, asxaabtiisana way iga soo gaadhay, warbaahintuna way qoraysaa in la xidhay saxafi amba ninka la yidhaahdo samafale ustaad cabdilmalik muuse coldoon. arrinta uu u xidhan yahayna waan dabagalay. waxa ay ku saabsan tahay dugsiga la yidhaahdo abaarso oo magaalada Hargeysa ku yaala, oo dhaqanka iyo aqoonta iyo waxbarashadaba lagu barto, iyo jaamicad dugsiga raacsan oo networkigeesa ku jirta oo magaceega la yidhaahdo barwaaqo. waxa weeyaan arrintaas dad fara badan baa ka hadlay, siyaalo kala duwan bay uga hadleen. isagaa ka mid a shaacirka amba gabayaaga weyn ee yuusuf waa ka hadlay. waxaan mar ka maqlayay culimo kale oo si kale mar uga hadlayay, sida sheekh barbaraawi oo kale. culimo fara badan iyo abwaano fara badan baa ka hadlay oo iyaku mashruucan kasoo horjeeda. abwaano kale iyo aqoonyahan kale na way ka hadleen, oo cabdiqays iyo rag fara badan ay ka mid yihiin, oo barnaamijkan aan kasoo horjeedin, oo u arkayn wax dhibaato inuu ku jiro. waxa weeyaan anigu waxaan jeclahay arrintan inaan uga hadlo si kooban. waqti badan ma haysano, maalinaan khamiisa, ininkuna jamcihii baa inii soo galay oo habeen baad ku jirtaan bariga iyo geeska Africa. annakuse waxaan ku jirnaa galab, waana soomanahay. marka waxaan jeclahay inaan soo ururiyo oon soo koobo. horta marka hore waxa weeyaan in dadku ay hadlaan oo ra'yigooga ay cabiraan waa arrin wanaagsan weeyaan, oona la kala duwanaado afkaartu, iyada oo ujeedadu ay tahay in wax la saxo. marka arrintaas way ku ammaanan yihiin dadka Somaliland inta badan. dadku isku mid maaha, ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay walaa yazaaluuna mukhtalifiin. dadku waxay kama zuulayaan inay kala duwanaadaan. ilaahayna wuxuu yihi walidaalika khalaqahum, sidaa buuna ilaahay u abuuray inay dadku kala duwanaadaan, oo ninba fikrad iyo ninba ra'yi uu yeesho. ilaahay baa dalbay sidaas subxaanahu wa tacaala, waa iraada ilaahiya, waa qadar kowniya. marka dadka in hal fikrada loo sameeyo, hal midab a laga dhigo, hal system a laga dhigo, wax suurto gali karaya maaha. markaa si taa loo xaliyo, waxay bini aadamku gaadheen marka ay dhan walba ka eegeen in la sameeyo wax la yidhaahdo in dadka xorriyadda loo daayo. dadku inay hadlaan, laakiin ay ilaaliyaan dhowr arrimood. kow, inay ilaaliyaan shareecadda islaamka guud ahaan, mabaadi'deeda waaweyn, ma aha fiqiga laisu khilaafsan yahay. inay dadku ilaaliyaan akhlaaqda iyo dhaqanka guud iyo dhadhanka dadku ay leeyihiin. in la ilaaliyo dastuurka iyo waxay ummaddu isku afgaratay ku wada socoto in la ilaaliyo. iyo in la ilaaliyo deganaanta iyo midnimada dadkana in la ilaaliyo guud ahaan. inahaas baa lagu wadaa
adduunyadu say wax u socon karaan. intaa haddii la ilaalinayo dhexdeeda waa lagu kala duwanaan karaa, waana la isku fikrad dhaafi karaa, waana la isku sheegi karaa waxyaalada la isku haysto oo dhan. marka arrintaas waa midda koowaad oo mabda labaadi waxa weeye marka la rabo in siyaasad iyo dowlad la samaysto oo dadkan geeska Afrika ku nool, waa aniga hore inagu sheegay dowladaheenu waa fragile, waa dowlado dabacsan oo jilicsan oo aan lahayn arkaan iyo usus adag aanan ku taagnayn. sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay in aan garanno horta dantu siyaasaddu maxay ka shaqaysaa. siyaasaddu marka ay fuqahadeenu baarayaan, ibnu taymiye iyo maawardi iyo abu yacla iyo culimmadeennii hore iyo kuwa dambaba ay diinta islaamka ku dhex baarayaan, waxay dhahaan siyaasaddu hadafkeegu waa maslaxad, waa interest, waa danta dadka in laga shaqeeyo. marka siyaasaddu maadaama ay tahay interest, waana fan oo sidii loo maamuli lahaa ummadda guud dantooda iyaa laga shaqeeyaa. idaaratu sha'ni alcaam walkhaas. siyaasaddu waxay isbarbar dhigtaa masaalixda iyo mafaasidda, maxaa faa'iido ku jira tallaabo haddii la qaado, maxaase dhibaato ka iman karaya. haddana waxaa kale oo la eegaa oo siyaasaddu ay ka shaqaysaa laba dhibaato hadday hor yaalaan, keebaa lagu dhici si dhibaatada weyn looga badbaado. laba wanaag hadduu hor yaalana wanaagee la soo dadejini bay siyaasaddu ka shaqaysaa. markaa siyaasaddu waxa weeyaan shaqadeedu waa almaslaxa alcaama, maslaxadda guud walkhaas iyo tagaar weeyaan. walaalayaal, marka ay culummadu siyaasadda eegayaan danba inoo tahay, waxaa la eegaa maxaa loo sameeyaa dowlad, ma hadafu dowla. dowlad dadku maxay u sameeyaan? dowlad dadku waxay u samaystaan inaa wax la nidaamiyo, liintidaam ashacab, shacbigu inuu nidaamo. waxaa laga baxsanaya alfawda. marka fawda si aynan u dhicin waa in wax la nidaamiyo. si wax loo nidaamiyo 3 shay baa la isku keenaa, yani waa araar bay iga tahay weli haddaas. arrinta koowaad waxaa laga dhaqaaqaa in la sameeyo dadka xorriyadooda in la ilaaliyo. dadka ilaahay baa xor ka dhigay, ilaahay baa hadla ka yidhi. haddayna kol ku xadgudbayn diinta wax kuu sheegayaan, dadka afka lama qabto, sakara lama qabto. waxaas waxyeelada wadano badan oo Somaliland ku meersan burburiye weeyaan. marka dadka in la cadaadiyo ma wanaagsana, waa in dadka xorriyadda loo daayo. arrintaas waa koow weeyaan. arrinta labaadi waxa weeyaan ay u baahan tahay si maaragtay intidaam u dhici karo, in power la helo, dadka xuquuqdooda kala ilaaliya. waa inay dowlad jirto, dowladduna waa inay kana xaqiisa siiso, kana xaqa uu dadka kale ka qaatay ka soo rido. gaar ahaan dadka dowladda ay culculus ee xoogga leh waa in laga celin karo inay dulmaan dadka. lidaalika wuxuu oran jiray abubakar, anigu waxa aan u joogaa meesha waxa weeye madluumka inaan usoo rido xaqiisa. marka xaqa madluumka meesha lagu soo ridayo, meesha dowlad fiican baa ka jirta sida badi laga hadlo. arrinta saddexaadi waxa weeyaan sidee loo wada socodsiinayaa power iyo xorriyad weeyaan. fan siyaasaddu waxa weeyaan fanka la iskugu dhisi kari lahaa, powerka oo powerku badi u qooqaa, iyo xorriyadda oo iyaduna ilaalisa. xorriyaddana waxaa ka mas-uula ilaalinteeda golaha baarlamanka ee la doortay in maalintii dhaweyto aan tahniyadeynin. haddaba ikhwaanii fillah, waxa weeyaan intaasi waa iska aaraar weeyaan. culimmadeenu waxay ku soo ururiyaan siyaasadda markay ka hadlayaan 2 aayadood. aayadda qur-aankee ilaahay uu yidhi tabaaraka wa tacaala, amaanada waxaad u celisiin dadkii xaqa u lahaa. ilaahay jala wacala markuu ka hadlaya siyaasadda, ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha. waa aayaddaas qeybteeda hore. qeybta labaadna wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli. dad haddaad xakumaysaanna ku xakuma buu ilaahay yihi cadaalad tabaaraka wa tacaala. culummadu waxay dhahaan, weliba ibnu taymiya kitaabkii siyaasa sharciya iyo kuwa kaleetaba maawardi iyo jimaacu siyaasati alcaadila, siyaasadda cadaaladda ku dhisan meeshay ku soo ururtay waa 2 kelmadood weeye. waa amaanadii oo dadka loo celiyo, xuquuqdoodii oo shicibka loo ilaaliyo, iyo cadaalad dadka lagu xakumo. labadaa bay u dhaxaysaa siyaasadda cadaaladda ku dhisan ee dunida tan inay wado ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa tacaala.
هذا بإخواني في الله ما دام الأمر كذلك ما دام أرنتو أي سداتها هاي وحان إسويديي ما أنت مركي عن مقلي عبد الملك والله حري سؤال با ماذا حقيقة كسو دتكتي وحان مقلي إني علماء الدونك كإمتي أو صوماليات iyo culumo maaragtay reer Somalilandba ay shir qolo ansaar sunna la dhaho ay ku qabteen magaalada Hargeysa oo dadweyne fara badan loo yeeray inay ka soo qayb galaan mu'tamarka oo aad u wanaagsan oo arrimaha ay Somaliland ku amaanan tahay weeye bardhaweyna waxa lagu qaban qaabiyay tafsiirka tartanka quraanka oo rag iyo haweenba ay ka qayb galeen oo heer sare ah oo xataa geeska Afrika inta badan aan ka dhicin adisaabo ka burburay جوائزته اللي بحيي يوحى الباشا لوجود دقيقتك أي آدو سرّيسو يصير القرآن كلوجود ترتميو مارتي قراءات كوردن ووحي يعني أد ضدك قرة حيسان يعني وحكلو دعيبة هيد شيخ وين وعالم وفقه الشافعي وكو تخصصي ويمنية إياه هرقيس الله كياني مركز بو وانا شيخي دكتور خضر وأهلنا اللي يرى وآد فقه شافعي ويقانا أما فقه بعامهان آد ويقانو مارتي عالمة حفظه الله شيخي سيو كاني وعلومدي ووينيد قبلك أي كرديجنيين أريتاسنا وأرين مهمة وكتو سيسا وناقا ماشا كجرا أريس الضحات باجرتو وحاجري إن بريهن مسكيتك علمتان يهريريس أي كسعودين دورات سمينيرات وبرو وبحيني العلامة علامة وين مارت محدث كأ شيخ عبد الله علي جيلي مارت غير جيبوتي معلنا كأ جيبوتي إسلام مركزنا إمام كأ مساجد وين مساجد كويا لما قال جيبوتي حافظ صدحات أنا علماء وجوا وين الدون كمان علمي حديث كأ ومرنا كتاب كالمجموع إمام النووي رحمه الله ومارتي كمرنا مساجد وكدقي إن أريبهاس أردن وحكتوس يا إخواني في الله الوقت دو وحكدي عدونا شركي وينا مقالة هرجيسة يكون قبنيين جماعة الدعوة والتبليغ أو اجتماعي عام كهاي سنوي كها مركها هو ميل سومالي لاند قران مقالة هرجيسة وميل برواقيسن أو بركيسن أو دجن أو أي كدعين دورشوين ضفر بدن ما أنت أي برلمان كوجوجان oo ka mid yahay maartay madaxweynaha imka baarlamaanka golaha wakiilada gudoomiyaha oo ka mid yahay maartay rag fara badan oo asxaabanahay oo ku guuleystay qar culimo yihiin marka waxaas oo dhan waxay ku tusaysaa inay tahay meel maartay khayr badan uu ka jiro sidaa daraadeed waxaan jeclaaday inaan idhaahdo iyadoo shirka weyn ee culimadii uu joogo sheekhi maartay quraanka شيخ القراءات وقرآنك وقراءاتك عالمية شيخ عبد الله مارتي الشيخ عبد الرشيد علي الشيخ علي صوفي حفظه الله وحكجرا هدوبا نهيب بقفك وجهر عالم كأنك قرآنك الشيخ ددو مارتي مجتهد جاري درجة المطلق حق فقهها وإسلام ككسو صار حلول إيو مسائل جاري ayaa la weydiiyay quraanka maanta ayaad isleedahay la barwan buu durida ka yahay wuxuu yiri fiima a'lam la a'lam hadalkiisi intaan ogahay ma ogi qof sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi ka yaqaan quraanka kariimka qiraa'adkiisa marka sheekhaasina alxamdulillah waa sheekh inoo dhashay oo dalkeena iyo ummadeena Soomaaliyeed ka dhashay wuxuuna joogaa maanta magaalada maaragtay Hargeysa si uu uga qayb galo shirka kan okay waxaas oo ka dhacaya magaalada Hargeysa oo farxadaha ay jiraan waxaan diiday in aan qalbigayga murugadan ay ku imato inuu nin aan saaxiib nahay oo ka shaqeeya saxaafadda isla markaasina ka shaqeeya kan maaragtay caawi oo samafala in uu maanta shalay darad maalin buu xabsi ka soo baxay dad uu xabsiga ku arkay buu xabsida ka soo saaray uu dadaalay imikana inuu xabsiga galo waan ka naxay laana xabsiga wuxuu yahay waan ogahay dhibaatada uu leeyahayna waan aqaanaa intaas waxaan jeclahay qofku haban noqdaba qof fikradda dawladdu ay ka aaminsan tahay inuu sax ahayn waxa wanaagsan in la siiyo xurriyadda qofka
iyadaa tababarta mujtamaca maaragtay marka qofku xor yahay uu hadlayo waa la saxayaa waxa uu sheegayo ano imika berigii horena waan aqaanay imikana waan ogahay waxyaalooyin aan u ogolayn buu ku hadlaa mararka qaarkood saaxiibkay weeyaan cabdilmalik waxyaalo maaragtay yara degdega waxyaalo maaragtaan isleeyahay muu bislayn waxbaa u hadhay inuu wax akriyo ayuu ku hadlaa wax walba uu diidaa marka intuu xabsi ka soo baxay waxbaa kusoo biray waa ra'yigiisa weeyaan marka anigu waxaan aaminsanahay in lala niqaasho lala sheekaysto culimmada waaweyn ay la fadhiistaan gaar ahaan culimmada maaragtay aadka fikirka islaamka u taqaana ee diintana xoogga u taqaana waxaan soo bandhigi lahaa inay sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo kale oo ay sheekaystaan amba sheekh almis oo kale ay wada fadhiistaan ay wada sheekaystaan in uu maaragtay culimmada sheeko loo furo qofka maaragtay khaasatan afkaarta islaamiga ah ee qofka uu xambaarayo in laga saxo waa muhiim kutubta sayid qutub waa kutub fiican in la akhriyo u baahan laakiin waa kutub lagu akhriyo indho cilmiya maaha laskama akhriyo un kutubtaasi halis bay leeyihiin inta badan waxay kuu geysan karaan dhibaatooyin dhinaca fikirka haddaadanad ahayn qof bisil oo dhisan marka kelimatu daaquud buu isticmaalaa sayid qutub aljaahiliya buu isticmaalaa alcilmaaniya shaamila oo wax kasta waxuu isticmaalaa alfaad isagu og yahay waxay ka dhigan tahay buu sayid qutub isticmaalaa marka waxay u baahan tahay in qofkan waxaan laga saxo oo lala fadhiisto sayid qutub raxmatullaahi caleyh kutubta uu qoray waxaa ku jira afkaar heer sare ah siduu qaradaawi yidhi waxaana ku jira afkaar khatar ah oo u baahan in niqaash lala sameeyo marka dhalinyaradu ma akhrin karaan fii bidaayaati dacwa ma akhrin karaan haddaynan bislayn gaar ahaan laba cilmi haddaynan aqoon dhalinyaradu ma akhrin karaan haddaynan aqoon cilmi luqa afka carabiga haddaynan aqoon itlaaqaadka iyo taqyiidaadka hadallada furan iyo hadallada xidhxidhan iyo haddaynan aqoon cilmiga usuul fiqi lahdo cilmiga usuul fiqigu waa cilmiga caqliga muslimka dhisa weeyaan waa cilmiga qofka muslimka caqligiisa habeeya weeyaan sidaa daraaddeed waan jeclaan lahaa talada ragna aan u sheegay inay inankaa dhalinyarada ah oo shidmaya oo ololaya oo mustaqbal fiican leh oo naxariis badan leh oo dadnimo leh in la fadhiisto oo lala sheekaysto waxyaala badan in lagala sheekaystana way u baahan tahay waxaa ka mid a waxyaalada cabdilmalik muuse caldoon in lagala sheekaysta waxa weeyaan waxa loo yaqaano alfiqhu lislaami fiqiga islaamka siduu xal u keenaa waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano alislaax almutadarij sidee wax loo suubiyaa iyadoo tallaabo la qaadayo waxaa ka mid a alislaax asiyaasi sidee siyaasadda wax loo suubiyaa oo loo hagaajiyaa waxaa ka mid a adiga oo wadankaaga sida uu yahay ula nool sidee haddana loo hadaa wax weyn iyadana waa fikrad fiican in adoo reer somaliland dara sidaad u noqon kartaa qof soomaaliya oona iska horimaneyn sa anigu baan reer jabuuti u ahay laakiin aan iska horimanin inaan ahay qof soomaaliyeed marka sidee loo wada wadi karaa labadanbaba inaa maaragtay isagana uu aada u akriyo bay u baahan tahay waxaa kale oo muhiim ah inaa laysla eego u baahan in ma aragtay dhalinyarada marka la saxayo in la iska daayo xooga dantana waa dowladda weeyaan eeg xoogu xal ma aha itaalku xal ma aha itaalku maanta maraykan baa 10 kun ah 20 sano haystay afghanistan isagoo ordayu ka baxay taliban fikradeediina way iska haysataa dhulkiina way ku soo noqotay walidaalika maalin dhaweyta waxaa idhi mar aan arrintaasi maxaa darsi ku jiraan ka waramayay الفكرة لا تموت فكرة لا بدلي كرب بقوة الدولة دولته حوق فكرتكم بدلي كرتو وحد فكر كالوجود لها بالفكر حجتنا وح على جهر تجا بالحجة علمنا وح على جهر تجا بالعلم دليل كنا بالدليل رأينا بالرأي الحوار والله سوا إلهي وحو إنه أبو ري أفر الرموضو عقل جينا إلهي نسيه وحو نسيه مان أنا وحو كلا جرنو وحو نسيه منهج قرآنه هي حديث أنا وحكو إفنو وحو نسيه عرب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أنكو شاكينو إلهي وحو نسيه تبارك وتعالى هدنا وحا أودا وحكوينو إن آن لنا هاي أن اسكو فهمينو وضع صومالين هاي إذا ما دام الأمر كذلك وحال الرباء إن لا شاكيستو إن لها صاوو إن حرق يحوقو معنا مالي دولة نقوى وين با ملايين ضد حري مصر با لغو حرين هاي سعودي با لغو حرين هاي
dadkaasi afkaartooda kama tanaasulaan way kusii adkaadaan. laakiin dadku fikradooda haddii lagala niqaasho meel dhexaa la iskula yimaadaa. marka xalku waa niqaashka iyo xiwaarka ee maaha xoogga. marka dowladda waxaan ku leeyahay aniga oo jecel oo dalka uu dalkaygii yahay, dadkuna ay dadkaygii yihiin, dhulalka ugu degan ee ugu fiicanna ay ku jirto, waxaan ka codsanayaa si naxariisi ku jirto madaxweyne muuse biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka zaylici iyo madaxda baarlamanka iyo culamaa udiinka jooga dalka dibad iyo gudaba ka yimiday inay qaadaan, ay arrintaas ku dadaalaan ninkaas inuuna xabsiga kusii raagin oo sijniga laga sii daayo. anigu waan dhageystay kelmadda madaxweynahana waan dhageystay muuse biixi, kelmadda cabdilmalikna waan dhageystay. yacni kelmadda cabdilmalik uu madaxweynaha radinayo uu uga jawaabayo arrintan ma cilmiyeysnayn. run ahaantii waa laga fiicnaa inuu saa u hadlo. walaalkay saaxiibkay waan jecelahay, waxaa ka fiicneed inuu u hadlo sida si kaleeto oo ah inuu maaragtay cilmiyan uga sheekeeyo iskuulkan ma dugsigan. waxaa jira wax la dhahdo adduunka maanta waxa la isku haysto waa caalamul afkaar. waxaa la rabaa in dadka la sameeyo maankooga. waxaa sameynaya waa iskuullo, waxaa sameynaya waa manaahij, waxaa sameynaya waa aqoon-yahan. annagana maxaa ina looga baahan yahay mu'tamaraadkan aan qabanayna iska waaweyn maaha, waa inaan dadka maankooga samayno. hana ka cabsoonin laa cabdilmalik walaa khayruhum, ha ka cabsoonina dugsi inuu qofka muslimka diinta ka saari karo. maxaa anaana ku hayana. waxaad akhrisatiin kitaabka maxamed qutub uu qoray ee la yidhaahdo waaqicuna almucaasir. kitaabkaas waa kitaab intiisa fiican, in badan oo fiican baa ku jirta. yani kitaab kastiba wanaag iyo xumaan buu leeyahay. kitaabka maxamed qutub wuxuu ku sheegaa markuu ka hadlaya asaxwa alislaamiya, baraaruga islaamka, ee uu ka hadlaya gaar ahaan wadanka masar, wuxuu dhahdaa dadka diinta xambaaray ee islaamka qaaday halkay ka soo baxeen? ma azhar bay ka soo baxeen? ma masaajid bay ka soo baxeen? ma madaaris bay ka soo baxeen diiniya? mise waxay ka soo baxeen jaamicadihii reer galbeedku ay sameeyeen ee loogu talagalay in muslimiinta lagu mashquuliyo? wuxuu yidhi waxay ka soo baxeen jaamicadihii muslimiinta lagu mashquulinayay. wuxuuna soo qaatay kelmad rashid qanuushina uu soo qaataa, culimo kalena way soo qaataan. waxay dhahdaan muusa tarabaa fii beyti fircawn. nebi muuse waxaa lagu tarbiyadeeyey aqalkii fircawn. yacni macnaha nebi muuse wuxuu ka soo baxay guriga fircawn buu ka soo baxay, isagoo og systemkusu u shaqaynayo. marka annagu waxaan rabnaa inaan haddaan nahay ducaad iyo culumo, in aan maskaxdan la samaynayo inaan ka qayb galno samaynteeda. ma aha inaan cabsano had iyo jeer oon orano dadkeennii baa la qaadanayaa, waa la maskax meydh baa loo samaynayaa. adiguna maxaad ka shaqaynaysaa marka ummadaadii maskaxda laga maydhayo? adiguna waxaad ka shaqaysaa maskax buuxin iyo maskax nadiifin iyo maskax maaragtay hagaajin iyo maskax kobcin iyo wacyigoo sare u qaadid ka shaqeen. walidaalika aniga waxay ila tahay meeshaas uu ka cabsoonayo dad badani waxaa kasoo bixi karaya ducaadda adduunka ugu waaweyn iyo culimmada adduunka ugu waaweyn. maxaa yeelay haddii marka uu jaamicaddaa soo dhigto, uu dugsigaa soo dhigto, adiguna aad qaadidood masaajidka ugu dhigtid islaamkii oo cilmi ah, islaamkiiyo xoog badan aad ugu dhigtid, waxaa laga yaabaa inuu beritoole noqdo raggii khatarta ahaa ee islaamka kor u qaaday qarniga 20 iyo 21 ee kasoo baxay jaamicatu alqaahira iyo jaamicatu liskandariya iyo jaamicatu caynu shamsi, in aan kasoo bixin jaamicatu lazhar. marka waxa weeyaan arrintaasi waa arrin muhiim ah. meesha tan dagaal baa adduunka, dagaalku waa xarbul afkaar. kutub badan baa laga qoray xuruubul afkaar. dagaalka maanta adduunka ka socdaay waa dagaalkii afkaarta weeyaan. afkaartuna waa la dhisaa waana la sameeyaa. kuma joogsanaysa kelmad aad meel ka akhriday iskuulkan ha la xidho iyo jaamacadda ha la joojiyo, kuma joogsanayso. kumana joogsanayso inaad tiraahdid maxaan ku dhahdaa waa naqdiyey, kuma joogsanayso. waxay ku joogsanaysaa qofkan la sameynayo adiguna samee, ka maydh, kadibna ku shub tii saxda ahayd. qofku waa muslim, quruxda islaamka hadduu arko. waxaan mar dhaweyta maqlay inuu kitaab akhrin jiray sheekh almis masaajidka ibrahim dheere ilaah u naxariistay, inuu ka akhrin jiray kitaabka ibni khalduun. arday iyo profesero jaamacadda dhigtaa imanayay oo dhegaysanayay. waxay dhahdeen ibnu khalduun waaba caalim weyn, waa u baahannahayba. dhalinyaradii way ku qanceen, kitaabkii way turjumayaan ba af soomaali baan ka dhigaynaa bay dhahdeen. marka
arrintaas waa muhiim. Iminka waxaan maqlay inuu sheekh mustafana bilaabay kitaab usululfiqi dhalada u bilaabay ay xoog u yimaadaan. marka waxaa loo baahan yahay in dhalinyaradan 3 arrimood lagala hadlo. koow, hablo iyo ragbaba in lagala hadlo ma aha inaad dadka diinta qura la baro, waa sax, diintu waa asaasi, laakiin fikrad baa lagula dagaalama. qofka waxaa la baraya cilmiga dhaqaalaha islaamka bar. muxuu yahay cilmiga dhaqaalaha islaamka? qofka waxaa la barayaa cilmiga bulshada. muxuu yahay cilmiga bulshada islaamku bar? qofkan waxaa la barayaa cilmiga maaragtay falsafad baa la baraya, falsafad islaamku aragtiisa falsafadeed bar. falsafadu waa xaaraan, waan kasoo daalay khalaas. bar qofkani maa hiya alfalsafa alislaamiya, islaamku siduu arkaa kownka, siduu arkaa qofka, siduu arkaa maxaa dhahdaa nolosha. waa falsafadu intaa bay ka warataa. intaa bar qofkan. marka qofkani Max Weber iyo Marcus iyo maxaan ku dhahdaa Hobbes iyo wixii loo soo dhigay oo dhan wuxuu helayaa jawaabtoodii. marka jawaabtii buu haystaa, meel uu ku xaliyuuna haystaa, wixiina uu iska dhaafayaa. marka laga dhahdo cilmiga bulshada waxaa bilaabay hebel baa bilaabay, waxaad arkaysaa cilmiga bulshada waxaa bilaabay Cumar ibn Khattab. anigu waxaan aaminsanahay xataa Ibn Khaldun maaha, Cumar ibn Khattab baa bilaabay radiyallahu ta'ala. cilmiga istiraatiijiyadda maaragtay dowlad lagu maamulo sida ugu qurux badan Cumar ibn Khattab baa sameeyay. waxyaaladaas oo dhan waa cilmi dadka inaan barno. xadiisaanta nabiga sallallahu alayhi wasallam saan u akhrino si ka duwan u akhrin karnaa. yani imiga anigu waxaan hayaa 3 xadiis oo meel dhawata aan soo bandhigi doono. xadiiskii ammaanka uu ka sheekeynayay iyo xadiiskii kaleeta ee maxaan ku dhahdaa isaguna ka hadlayay maxaan dhahdaa xudayfa kaana annaasu yas'aluuna rasuula can alkhayr wa kuntu as'aluhu can ashar. alxaasa asaadisa, xaasada lixaad ee istiraatiijiga arrinta khatarta ah xadiiskaas. iyo xadiis kale oo nabiga sal allahu calayhi wasalam uu kaga waramay waxa loo yaqaano atakaaful ijtimaaci. maaragtay mu'min maaha man baata shacbaan wa jaaruhu jaayic. idan waxaas oo dhani waxa weeyaan haddaan ku akhrino luqad kale iyo aqoon kale iyo aan u bandhigno fikirka islaamiga ah, dadka taa han barno, fikirka han barno. marka haddaan fikirka barno cabsi badan way naga baaba'aysaa. arrinta labaad ee kaleeto waxa weeyaan annaku waxaan mas-uul ka nahay albalaaq, inaan dadka diinta gaadhsiino. mas-uul kama nihin dadka inaan islaamino. dadku inay diinta qofku isagaa iska mas-uula. qofku inuu diinta haysto isagaa ka mas-uula qofku. laakiin adiga waxaa la dadka diinta gaadhsiiya inay haystaan, dowladduna waa inay ilaaliso dadka diintooda. hada huwa. laakiin adigu mas-uul kama tidi qofku inuu gaaloobi waayo. ilmahaagaa gaaloobi karaya. waxaa gaaloobi karaya maaragtay qofka adduunka kugu dhow. oo nebi nuux ba ilmihiisu gaal noqday, nebi ibraahim buu aabihii gaal noqday, nebi luud bay xaaskiisu gaalad ahayd, marka nebi nuux bay islaantiisu gaal ahayd. marka suurtagal maaha inaad maaragtay adigu mas-uulka noqdo. lakin waxaad mas-uul ka noqon kartaa awalan naftaada, ثانيا البلاغ ضدك إلى تجارسيسيد وما عليك إلا البلاغ المبين لتبين للناس ما نزل إليهم ضدك إلى رعد بيسيد وحي لو وسود دجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما دام شيخ تهي، مفكر تهي، مثقف تهي، عالم تهي، ضدك تهي جارسيه. إذا قريتها سنة وقريتها لا قريت هذا قدام بيسوي حويان. إخواني في الله صومالي لاند وحلوه ذا الجوجا وحويا واحد عضو وأفقرت بلشويا. أفقرت بلشويا يعني كان بلشو كسو جهدا مارتي ضد بمثلا أدقونا ضد باك كسو جهدا ما دحوينا بك هو بريتو ولا قف عادي أنا قدوتا وحويان جديد مدنا ويفوقان كرتا وارون وصورة قال إنه مارتي أد كسو جهدان وحق بونا أولى إنه كسو جهدا مصبيحي ما دحوينا إنه كسو حق بولا سانق وحق أقول هاي إن أسمع عمر كسو جهدا كسو اسمع عمر إلى رقم مسيحون لكن ما جعلين السومان لا سد جيبوتي نقطة أنا ما جعلي وعن جعلها إن مال بل افتيقوا كبوحة أي نقطة markaasaa daraaddeed waxaan codsan lahaa magacayga walaaltinimada jacaylka aanu hayo in ninkaa saaxiibkay ah waa aniga inii sheegay wax badan baan isku khilaafsanahay agga afkaarta laakiin haddana waa saaxiibkay waa walaalkay anu saasaan aaminsanahay in la sii daayo cabdilmalik muuse culdoon oo laga sii daayo xabsiga xorriyaddiisa ha helaan leenahay xaafadiisa iyo gurigiisii ha ku noqdaan leenahay ubadkiisii ha dhex seexdo aan leenahay islaantiisii iyo xaaskiisii ha garab jiibsada ayaa jecelnahay hooyadiisii macaaneed ee dhashay ha arka ayaan leenahay dhibaatadiina soo martay ee ilaa maanta haysatay isagoo lama rabno qof kasti oo bini aadana lama rabno marka saasaan jecelahay inaan ku idhaahdo walaalkay maaragtay muuse biixi oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland amba dalka somaliland madaxweyne ka ah saasaan ka jecelahay inay arrintaa ka qayb galaan baan jecelahay madaxweyne ku-xigeenka maaragtay abtiyo saylici inay ka qayb galaan baan jecelahay arrintaas maxaan ku idhaahdaa baarlamanka cabdirasaaq iyo
labada guddoomiye ku-xigeen inay ka qayb galaan baan jeclahay arrintaas culummada islaamka gaar ahaan culummada aan aadka isku naqaano ay maaragtay wasta ay sameeyaan sheekh cabdirashiid oo meesha jooga oo marti ku ah iyo kuwa kaleeto ee la jooga gaar ahaan culummada reer somaliland inay maaragtay arrintaa galaan yaan jeclahay oo ninkaas samafalaha ah ee dad badan oo xabsiga ku jira kasoo sii daayey naxariis badan leh adigoon fikirkiisa eegeyn dhaqankiisa eegaya soo sii daa wuxuu qabtaa insha ilaahay dartii markaa waxaan leenahay xorriyaddiisa helo cabdilmalik qof kasti oo maaragtay duunsan oo dunidan jooga xorriyaddiisa helo adduunka waxa ugu qaalisanuu ilaahay bini aadan siiyo waa xorriyadda weeyaan wax xorriyadda ka qaalisani ma jiro xorriyadda ay noo keenaysa inaan muslimiin noqono inaan iimaankeenu kobco salaadaad ku tukanaysa adoo xor ah waxay ka fiican tahay salaad bunduq lagula dul joogo tuka lagu leeyahay waxaa ka fiican adoo xora salaada tukanaysid qur-aankaad akhrinaysa adigoo xora wax ka fiican ma jiro dikrigaad samaynaysa adigoo xora wax ka fiican ma jiro xorriyaddu waa qofkay ka maqan tahay baa garanaya marka xorriyaddu waa dhadhan bay leedahay macaan bay leedahay marka waxaan leenahay axuruubu cabdilmalik فريع عبد الملك الحرية لعبد الملك ليبري عبد الملك أفكر ما كوش جينا عبد الملك هلو سوء حرية دي سعيا لنا هاي أنت سويا ولا لها إن ماركتي عبد الملك كسهور جيدة وأوركيا إنه يهينين حق جيرة وحالنا هي حق جيركو ونسبي قفك واحد هذا هبل وحق جير محو حق جيركو يهي وحق جيركو يهي سيدو أفكر أيو حق جيركو يهي بلنا wuxuu xaq jir ku yahay sidoo u dhaqan yahay baa xaq jir ku yahay hebelna wuxuu xaq jir ku yahay sidaa marka xaq jirnimadu way badan tahay marka waxa laga yaabaa dawlad xaq jir inay jirto qof xaq jir inuu jiro dad maaragtay qabiilka ku xaq jira dad fikradda ku xaq jira dad diinta ku xaq jira sida ugu fiicanna uu quraanku inoo sheegay waja'alnaaka kadhalika ja'alnaakum ummatan wasatan ummadda dhaxaad inaan noqono wa khayrul umuri awsatuha rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam waxa ugu fiican waa dhexda weeyaan marka si aan dhexda u fadhiisano oo dhexda uga sheekaysano waxaan u baahannahay waxa weeyaan inaan is ixtiraamno anigu fikradayda inaad ixtiraamtid anna inaan ku ixtiraamo adoo iga duwan anoo kaa duwan iminka wadanadan aan ku nool nahay reer galbeedka dad baa jira xaq jirayaal waaweyn oo madowga arki karin laakiin dee way iska yidhaahdeen qofka muxuu ka qaaday madowga waa nacaa muslimiinta waa nacaa masaajidina arka ma doonayo waa laga dhegaystaa qofku haddaad dhegaysatid oo wixii saxana ka qaadatid wixii qaladana iska dhaaftid nolosha iyadaas saxaysaa nolosha xoog laguma saxo nolosha waxaa lagu saxaa dhegaysi baa lagu saxaa munaadaraad baa lagu saxaa doodaa lagu saxaa qoritaan baa lagu saxaa akhris baa lagu saxaa haasaa waa lagu saxaa qofka waa laga neefiyaa waa laga daaciyaa waa laga sheekaysiiyaa adduunku maanta halkaasuu socdaa in la wada haasaa waa la wada sheekaysto markaa saasa jeclaan lahaa insha allahu tacaala waxa aan salaan agan uga soo dirayaa dhammaantiin meel kastood ka joogtaan adduunkan waxaan leenahay xorriyaddu qof kasti oo dhidboon oo maaragtay xorriyadiisa helo siduu dooni ha ahaado isagu laakiin xor ha noqdo marka maxaa lagu gaarayaa xorriyadda horumarkaa lagu gaarayaa marka xorriyadduna waxay dhahdaaba aslan dad baa u haysta xorriyaddu inay tahay wax furan oo qofku wuxuu doona samayn dariyo wuxuu doona ku hadlayo maaha alxurriya almas-uula weeyaan xorriyad mas-uul qofka markuu xor noqdo waa mas-uul qofka aan xor ahayn mas-uul maaha walidaalika buu yidhahdeen reer galbeedka naftood waxay dhahdaan xorriyadaada waxay ku dhamaataa meesha qofka kale xorriyadiisa ka bilaamayso qofka kale xorriyadiisa ka bilaamayso marka anu haddaan jecelahay inaa qaawanaan aan arag dadka inta ugu badan iminka matalan marka taalibaan laga hadlayo allah hablihii baa xijaab loo wada gelin iminka matalan faransiisku hablihii buu xijaab ka wada saaray miyaa ka hadlaya xijaabku xorriyaddu ma dadka maaragtay cilmaaniyiinta iyo gaalada unbaa leh oo dadkii mutadayiniintii xorriyaddoodii marka eeg cadaalad darridu waxaa bay keenaysaa walidaalika qur-aanka maxaa ku qoran waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waad salaamantihiin dhammaantiin waan isalaamayaa meel kastoo joogtaan jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu